kartoonkeena maanta waxa uu ku bilaabmayaa nin jeelka la keenay oo aad u naxsan intii la sii waday waxa uu aad uga cabsanaya maxaabiista jeelka ku jirta dhaqankooda oo waalna awgeed gaar ahaan waxa uu aad uga sii cabsanaya nin xoog weyn oo jeelka ku jiray waxa uu la yaabay ninkan xooga weyn ee jeelka ku jira mar keliya askarigii ninka waday ayaa si aad ah ugu qaylinaya joojiya kadib way wada joojinayaan kuligood rabshadii maalintii ku xigtay markii maxaabiistii la siidayay isaga markiiba ma uusan soo bixin maadaama uu jeelka ku cusbaa oo uu aad u cabsanayay isaga oo hareeraha iska eegaya ayaa waxaa si kadis ah uu arkay niman kor taagan kadib way qabteen way soo tuureen camanka ay jiideen kadib haddana mar kale ayay soo tuureen ilaa heer uu ka gaadhay ninkii yaraa ee miskiinka ahaa inuu sida dadka waalwaalan u cararo haddana isagoo mar kale cararaya ayaa waxaa ku dhacay feer nin weyn haddana waxay ku rideen shabaqa kubadda basketbalka haddana way jiideen madaxa ayay ka garaaceen haddana way qanjiidhiyeen haddana way dhirbaaxeen haddana isagoo cararaya ayay madaxa kaga istaageen kadib markii uu u adkaysan waayey ciqaabta ku socota waxa uu ku soo noqday qolkiisii jeelka isaga oo aad u naxsan oo gariiraya haddana isagoo maalin maalmaha ka mida cuntadiisii sita ayaa waxaa ka boobaya maxaabiistii jeelka intaa ugu maydayn markii ay cuntadii ka wada qaateen 5 farood ayay ku sawireen isagoo iska taagan oo la yaaban waxaan dhacaya ayaa waxaa jiidhaya nin sita cuntadii jeelka lagu kariyey oo dhan kadib ninkii weynaa ilaahay ayaa weyne miikii ayuu cuntada dhiganayaa kadib ninkii yaraa ee miskiinka ahaa ayuu sida kubadda madaxa uga qabanayaa kadib xoog ayuu u tuurayaa heer ninkii yaraa uu ka dheereeyey xabadda markii uu sidaa u kacay waxa uu ku warhelayaa ninkii xooga weynaa oo dul taagan ninkii weynaa oo isleh feed uu ku dhinto ka jar ayaa ninkii miskiinka ahaa waxaa si kadis ah gacantiisa ugu soo dhacaya xayawaan yar kadib xayawaankii yaraa waxa uu ka cabsiinayaa ninkii xooga weynaa waxa uu qaylinayaa sidii barigii uu yaraa uu qaylin jiray dhulka ayuu ku dhacaya kadib dadkii waxay isweydiinayaan oo ay la yaabeen waxa riday ninkii xooga weynaa xayawaankii yaraa weli waxa uu saarnaa ninkii miskiinka ahaa gacantiisii maxaabiistii jeelka oo dhan ayaa ku soo ururaysa ninka waxay aad ula yaabeen sida ay ku dhacday arrintani kadib ninkii yaraa ee miskiinka ahaa oo hadda khatar isku maleeyey ayaa xabad qayla ah kaga kicinaya jeelka kadib dadkii oo dhan ayaa ka baqaya ileen hadda waxa uu noqday halyey ninkii yaraa heer waxa uu gaadhay meesha uu soo maro laga kala cararo oo aad looga baqo dadkii oo dhan ayaa hadda ka baqaya xitaa kuwii markii hore dili jiray hadda waxa uu ku noqday laf dhuun gashay xitaa waxa uu gaadhay heer meel ay dad fadhiyaan hadduu soo maro uu kala burin jiray dadka maxaabiista jeelka ku jirta ayuu marba dhinac iyo dhinac u eryan jiray markii dambe isagoo dadka iska burbursanaya ayaa waxaa arka ninkii xooga weynaa oo jimicsanaya kadib ninkii xooga weynaa aad ayuu uga baqayaa isagoo kolba dhinac ka eegaya ayuu mar keliya halka hore kaga soo baxayaa kadib ninkii xooga weynaa waxa uu ka baadhaya xayawaankii yaraa ee ilaalin jiray ninka yare miskiinka ah laakiin hadda libaax ayuu noqday kadib markii uu ka waayey xayawaankii yaraa waxa uu isdhahayaa gebigiisaba badfeeda u safaari gare laakiin si kadis ah waxaa halka sare uga soo baxaya xayawaankii yaraa ee ilaalin jiray ninkii xooga weynaa markuu sidaa u arkay waa uu suuxay ninkii yaraa oo hadda naftiisa kalsooni saayid ah ku qaba ayaa waxa uu la soo baxayaa suunka eyga qoorata lagaga xidho si uu qoorta sida eyga ugaga xidho ninkii yaraa oo jiidaya ninkii xooga weyna ayaa jeelka lasoo dhex maraya dadkii aad ayay ula yaabayaan sida uu ninkaa yari ninkaa xooga weyn leh uu u jiidayo kadib ninkii yara waxa uu bilaabay inuu maxaabista dhaco oo waxay haystaan uu ka qaato isagoo ninkaa xooga weyn isticmaalaya waxa uu ka qaato waxa uu dadka ka soo dhaco jeelka ayuu maalin walba la dhex mari jiray isagoo dulaynaya oo qasab u jiidjiidaya marka la gaadho xilliga cuntada isaga ayaa la siin jiray cuntada ugu macaan ee jeelka laga kariyo hadda waa ninkii yaraa ee miskiinka ahaa ee cuntadiisa xooga lagaga qaadan jiray lacagta maxaabiiska ayuu ka urursan jiray isagoo ninka xooga weyn u adeegsanaya layn dheer ayay dadku ku jireen si ay lacagtooda u bixiyaan ileen haddii kale waxa ku dhacaya ayay ogaayeen kadib marka uu laynkaa dheeri dhammaado maxaabiista oo iska ciyaaraya ayuu kolba mid soo qaban jiray way garaaci jireen isaga iyo ninka weyni kay soo qabtaan kibir dartiis waxa uu gaaray heer ninkii xooga weynaa intuu dhabarka ka fuulo ay maxaabiista kale taallo ka sameeyaan markii daalo ninka weyni madaxa ayuu kaga istaagi jiray si uu shaqadiisa u sii wato laakiin marka uu ninkii weynaa xanaaqay waxa uu la soo baxay ninkii yaraa xayawaankii yaraa uu ninka weyn kaga cabsi jiray kadib markii uu xayawaankii yaraa u soo dhowaaday ee uu dhunkaday ninkii waxa uu isku badakayaa bahal caadiya xitaa taalladii laga samaynayay ayuu kala tuurayaa gidaarada xabsiga ayuu kolba mid jebinayaa isagoo aad u cararaya ninkii yaraa aad ayuu ugu farxayaa waxaan dhacaya heer waxay gaadheen xabsiga dhammaantiis ay burburiyaan oo ay gebigiisaba ka baxaan weli ninkii waxa uu u sii cararayay sida dadka waalwaalan kadib markuu istaagay waxaa la kacaysa meer buur ahayd oo waxay la qabanaysaa hawada sare dadkii oo dhan ayaa ku soo ururaya waxay maxaabiistu la yaaban yihiin waxaan meesha ka dhacaya iyo siday wax u socdaan ninkii yaraa oo aad u dhoola cadanaya weliba si daran ayaa waxa uu eegaya waxa meesha dad ku soo ururay kadib waxa uu ka degayaa dameerkii uu saarnaa markuu istaago ayuu isku bedelayaa superhero marba wax kale ayuu iska dhigayaa kadib waxa uu ku warhelayaa inay wax khaldan yihiin inuu meel aad
aad u dheer saaran yahay iyo inay dad xadhaaf ah oo aan jeelka ku jirin markii hore ay meesa ku soo shumumeen kadib waxa uu mar keliya indhaha ku kala qaadayaa xayawaankii yaraa iyo ninkii xoogga weynaa oo feer la dul taagan. ninkii xoogga weynaa waxaa iska eegayaa halka dabe laakiin waxa uu arkaya inay maxaabiistii kulligood baxeen. aad ayuu u sii xanaaqaya isagoo isleh ninkii yaraa feedhka jar ayuu ninkii yaraa soo xasuusanayaa inuu markii hore xayawaankan yari caawiyey. kadib waxa uu isdhahayaa ku cabsi laakiin wixii oo dhan riyo ayay ahaayeen. ninkii xoogga weynaa kama cabsanayo feedhda weyn ayuu ka jarayaa kadib filimka halkaa ayuu ku dhammaanayaa.